أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام أخياري أصحابتي دولالها جنالك دقاق أدرحشده soo dhawaada waa muuqaal cusub maalin cusub ilaahay ayaa mahad leh mar kale hawada nagu kulmiino saamaxayna sii noolaan weliba aan qaadano oksijiinkan lacag la'aanta ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shukri walaalaha igu cusub channelka subscribe-ka ii saaray aada idinka mahad celinaa waa idin soo dhaweynaa barasho wanaagsan magacayga waa naciima walaalihii hore iila joogi dhammaantiin waa wad mahadsantihiin walaalayaal jazaakumullahu khayran ii sheer garay idinkoo isku duuban muuqaalada aan soo geliyo liketa ii saara kommentiyada ii soo qora aan isku soo duceyno qof wal meeshu jooga ilaahay ku ammaana yeelo waalidiinteena iyo walaalihii geeriyooda ilaahay waxaan uga baryaynaa qabrigooda inuu waasac uga dhigo naxariis jannana ilaahay uu siiyo sidoo kale waalidiinta iyo walaalaha xanuunsanaya ilaahay caafimaad ayaa uga baryaynaa inuu siiyo guurdoonka dhalinyarada ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ku irsaaqo guur xalaal ah ay ku degaan oo ay ku qaboobaan oo aysan ka qoomameynin insha allah soo dhawaada walaalayaal hadduu channelkayga subscribe ku aheen saaro maalin walba waa muuqaal hor leh oo mucjiso leh subxaan allah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ummadda soomaaliyeed meesha ay kusii socdaan ilaahay ayaa garanaya subxaan allah wax laga yaabo waaye waxaan leeyahay marka si aad noola jaan qaadidood safarkan uga qayb qaadatid channelka subscribe saaro soo dhawow sabar iyo waxaad u baahan tahay saxay kugu filan waan guulaysanaynaa insha allah kalimatullaahi hiya alculyaa intii in la eg aan hadli karno wax soo gudbin karno aan sheegi karno guusheennana way noo muuqataa insha allah biidnillahi alkariim isku duubni ayaa looga bixi karaa arrintan aad ayaa waxaa loogu sii socdaa waqti adagaa lagu jiraa waxaa lagu sii socdaa maalinba maalinta ka dambayso wax hor leh oo waaga markuu baryo markuy kusoo gaaraan aad yaabaysid gabadhan aa ujeediin maaragtay waa xaliimo gobaad ayaa la yidhaahaa magaceeda waa fanaanad soomaaliyeed fankaanay ku waasheen wax ay ka helaan iyo wax maaragtay adduunyo iyo aakhiraba ay uga faa'iidayiin ma jirto way ka warqabaan way u jeedaan nolol xun oo adag oo ciriiri oo yacni aad u daran ayay ku wada nool yihiin kulligood hal fanaan oo maanta hal qof oo shaksi ahoo dhibaataysan xataa u kaalmeyn kara kuma jiro ayagaa qado guryahooda deenay wada qaataan dhammaantood dhibaatay ku nool yihiin haddana kama haraan balaayadan waxaa maanta isoo gaaray muuqaalkaas oo la yidhi nicima aragsi u jajabtay naagti xaliimo gobaad la lahaa ayadoo kacbada aaday oo maaragtay joogto beedka ilaahay oo dhaar ku gashay oo tiri fan damba ma rabo bes waaye qolaas dadka heesahayga maaragtay daawado ama fiirsado ha iska dhaafaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun beedkii ilaahaya intuu nasiib alla kuu siiyo uu ku geeyey ayaad maaragtay meeshaas risaalo kasoo dirtay waa soo noqonaysaa isla markii wixii aad yacni ku dhex jiri jirtaa dib ugu laabanaysaa kowga horay dhab ka ahayn misdhihi karnaa ilaahay waxaan ka baryaa maaragtay ummaddan inuu wallahi xaqa fahansiiyo waxaasoo dad ahoo meesha kasoo qayb galo walaalayaal aa ujeediin ayadoo niikinayso dabad u xirantahoo maaragtay halkaas iska dhigaysa dad kaleentoo hore usoo niikin jiri yacni qofka hore usoo niikin jiri waa ku daysanaa markaad tiraahid dhibaatadaanaad la kulmaysaa oo faadumiine naagta la yidhaahay naagihii oo dhan ay ku waasheen iska dhidhigayin mogta war qofka inuu baalansigiisa isku dheelitirnaada aaday muhiim halkaas intay dabada xiratay dembigii ilaahay maaragtay ballanti ay lasoo gashay dembigeediina uu haystaa mogta risaalooyinka ilaahay uu usoo diraayo ayay baloog saareen oy dhagaha dhagna dhagaxay saaranayin dhagna dhoobay saaranayin noloshooda ciriiriga ay ku nool yihiin waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danku ilaa yiri wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa subxaan allah yacni qofka intee weji uu yeelan karaa kacbadaa tagaysaa waxaad dhehaysaa qolaas ilaahayaan u jeesti dartiis maaragtay bes waaye waxaan ilaahay dartiisaan uga tagay waa kuwaad soo noqonaysaa halkaasaad munkar iyo balaayo iyo wasakhnimo aad la soo joogsanaysaa dhexdii aad xiranaysaa dhalinyaradii dumarkii nimankii wixii odhana isku dhex niikinaayo kadib maxaa dhacay inay meeshii ay ka faniinto oy dhulka ku dhacdo dad badan hadda waxayba dhahayiin qoortay ka jabta iyo maaragtay dhaawac xunaa soo gaaray waxay noqotaba kolley wax ay ku dhex jirta waa haddiiba ay nooshahay wili towbada u furan oo maaragtay yacni tawba ay dhihi kartaa hadday nooshahay haddii waxaasoo kaleenta ka waran adoo ku dhex jirtid aa ku dhimatid walaalayaalow ilaahay ka cabsada oo maaragtay dadkan fanaaniinta oo ummaddana fasahaadinaya ayagana naftoodii fasahaadiye wax maanta aad ka faa'iidaysiin ma jirto hashii xanuunsataa loo qaaraamaa oo la yidhaahaa kiliyaa ka maqan
beeraa sida ka hala soo kaalmeeyo lugaa ka farfashtay kanaa sida ka aawe waxaan 24 saac fasaqa iyo balaayada aad ku dhex jirtiin lacagihii aad ka keedsateen hadday caawa qandhadaan banadoolka waa loo qaaraamaa banadoolka maaragtay kaniiniga birishtimolka waa loo qaaraamaa dadka fanaaniinta ilaahay amarkiis waxaa u dhaami lahayd inay suuqa yaayi iyo liindhanaan ay la fariistaan way ka faa'idi lahayd oo dukaamo yar ay iska furtaan oo ganacsi yar ay iska furtaan oo ilaahay dartiis wixii aa uga tagtid yacni risaq ka xalaalsanoo ka qayb badanoo ka baraka badan inuu ilaahay ku siiyo maahane ma allah ku dayacayo waa may maxaa ka raacay naagtaan maanta aad u jeediin inay kacbadii ilaahay ay tagtay oy been kusoo dhaaratay ilaahay qulubtaaduu ogyahay ciidiid iyo cali mahdiya intay isku soo dhudhunkadaan soo dagaalamaa ayagoo been weli maaragtay isku sii riman ayay kasoo tegi jireen kacbada markay kasoo degaan diyaaradan xabadaha isku bilaabi jiray iyo madaafiicda subxaan allah walaalayaalow ummadii soomaaliyeed dhibaatadan ayaa jirto ma ogtihiin saameynta inta in la eg qofka bini'aadamka heesaha yacni maskaxdiisa ay ku yeelan karto dhawaqii codka waan ka xiri hadda dhawaqaasaa la dheeraynaa music waxaa la saaraa kayra caadi oo aad u qaylinaya inta in la eg dhaawac bini'aadanka jirkiisa kasoo gaari karta mataqaanin oo baaritaano laga sameeyey dhawaqa ziyaadada ahoo maaragtay muusikada loo sameeyo ama wax kastoo aad maaragtay saan u qaylinayo aad ku raadinaysid inaad farxad ku heshid ama aad yacni reereen ku heshid waa wax qayaali ahoo been ahoo hadallo soo noqonayo been maaragtay wiilow saasaan ku ahaay wadnaha maaragtay sida iyo ekana aan ku bixin lahaa intaan ku bedeli lahaa yacni waxaa laga dheeraanaa waaqicigii rasmiga ahaa runtii oo dhanaa laga fogaanaa beentaasaa marka la iskugu imaanaa dadaa tikidii soo goosanayo showgan qofkan uu samaystay lacag uu rabaa inuu meesha uu ka helo inkastoo lacagtan ay holac iyo hur ay tahay oo ay ku nasanaynin haddana dadka meesha soo galayo o dhan lacagaa laga aruurinaa oo waxaas isugu yimid oo dhan qof yacni bil iskeers kusoo galaayo ma lah qofkii ka waran marka lacagtiisii intuu dhar soo gato maaragtay tikid soo goosto meeshaas soo galaayo haddii qiyaamihii meesha uu kugula dhaco ka waran ilaan qof walbo siduu ku dhintu kusoo baxaa la yiri wallaahi dad fara badan wacyigelin xooganay u baahan yihin culimmadii intaas way hadlaan waa la dhegaysan la iyo cid rabta inay dhegaysato ma jirto yacni barnaamijyada lasoo gelinaayo music markii lasoo saaro yacni muuqaalada caadiga aad ka arki kartaa oo youtuberada ay soo sameeyaan music markii lasoo saaro waa la daawanaa markii music uu saarneen oo qofka hadalkiisa keliya uu hadlaayo saas looma jeclo oo lama daawanayo yacni qof walbaba waqtiga oo rabo inuu maaragtay muuqaalkaas daawado laazim wax oo dobaamiinkiisa dhalinayo inuu ka dhex raadiyo waa oo farxaddii ah waxay gashay music iyo maaragtay hadal khayaali ahoo sida saanaan yeeli lahaay indhahaada iyo kana maaragtay muuqaadaa sida noqon lahaa meeshaad joogtida maaragtay aniga aan ku meeraysana waxaas khayaaliga waa inuu qofkii ka dhex arkaa yacni muuqaalka uu daawanayo hadduusan ka dhex arkaynin wax uu ku raaxaysto ama dobaamiinkii hormoonka oo farxadda siin lahaa uu ka heli karo mama noqonayin yacni reereen iyo barwaaqaha waxaa lagu dareemaa yacni gabdhaha yar yar oo hadda dhalinyarada iyo macalwiilisha soo duubo tiktok oo kale waa aragteen in badan yacni ma rabaan inay hadlaan music heeso qof kale hore uu qaaday soo saaranayin bacdeen way isruuxayiin xabadkaasay ruuxayiin waxay u malaynayiin waxa ay samaynayiin wax aad loogu raaxaysanayo dadkii kaloo daawanayin aaday ugu qanacsan yihiin way ku raaxaysanayiin wixii oo dhanaa waxay wada noqdeen marka ma ogtihiin inta in la eg maskaxda saameyn xoogan ay ku leedahay heesahan haddii aad daa'imto 24 saac aad maaragtay daawanaysid oo aad dhegaysanaysid yacni sidii daroogada jirka bini'aadanka qofka uusan uga gooyn karin saasoo kale inta maaragtay heesaha ay kuu qabanayiin markaad noloshaadii aad dabeeca uga dhigtidood daa'imtidood maaragtay tiraahid heesahaas lee rabaa iyo musicaas inaan maqlo iyo dhawaqaas dheer dhawaqa dheer meeqa qoom ayaa lagu halaago ilaahay qur'aanka uu noogu sheego noogu soo celceli yacni dadkii diintii ma rabaan ma baranayiin ma rabaan inay kuwaana qaataan ma rabaan inay ilaahay iyo digriga ay xasuustaan yacni ma og tahay nolol mugdi ah inaad sii galaysid maalin maalinta ka dambaysa markii heesahan aad daawanaysid yacni qaylada dheer oo heesta lagu dhegaysanayana ilaahay in badan qur'aanka wuxuu noogu sheegay qaylada inay halaagta oo dad badan oo adduunkan annaga nooga soo horreeyey sidii qoomkii nabiyullaahi shucayb loo diray qaylo ayay ahayd wixii maaragtay lagu halaagay qofka markuu yacni muuqaalkan hadda naagtan ay duubayso kaleenta ama naagaha kale ama nimanka musicaas loo tumaayo codka loo dheereynayo la daawanayo ma ogtahay jirkaada dhibaatada ka dhex dhici karto inay hataa ku gaarsiin karto inaad u geeriyootid oo maaragtay jirkaadii si kale uu u shaqeeyo tusaalayaasha ilaahay qur'aanka uu nagu baraayo oo maaragtay culimmada ay noogu soo celcelinayiin
dhagiye dhagax iyo dhoobo ka saarteen dadkaan aa u jeediin alla wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb qoomkii uu u diray walamaa jaa'a amrunaa najaynaa shucayban waaladiina aamanuu macahu biraxmatin mina وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين بالأرض ولما قوتي جاء ويمد أمرنا أمر كيري وما عرفت وقتي أن قبل لهن لقاري وأي عاسيان نجينا وحنبت بادنو إلهي يري شعيبا نبي الله شعيب إيه والذين آمنوا معه يدول كي رمي أو أساق الراعو للسعودين برحمة منا نحريس أنك حكينا كإمات أيان كبت بادنو يري إلهي النبي الله شعيب يقوم كي رمي وأخذت الذين كوي وحاقبتي ظلموا ماركتي كوي ظلمي ليالك أها النبي بيني ظالمين تأهانا وحاقبتي وأخذت الذين ظلموا الصيحة قيل أيا قبستي وماركت قيل داس أيا لقوها لاقي وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني أيغو وحكوا أكبريستين داره دي جوغو inay noqdeen kuwa ma aragtay jaasimiin ma aragtay ay haamidiin laa xaraaka bihim waa dad aan nuuxsanaynin oo dhaqdhaqaaqaynin oo xaraka dhan aan lahayn oo meeshoodii ku wada qalalay maxaa qalajiye ay ku wada geeriyoodeen qayladaas ilaahay ma aragtay uu ku soo diray oo qayladan ziyaadadahoo musican meesha dheer la geynayo la wada qaylinaayo waxay keeni kartaa inaad ku geeriyootid oo jirkaada xag caafimaad ahaan ilaahay si uu u abuuray organadan ay u shaqaynayeen sidaas uu alla u abuuray haddii marka qayladan ziyaadada ay imaato qayla markay imaato jirka isbeddel weyn ku dhacayo oo waxaa loogu talagalay qofka markuu waxaasoo kala maqlo inuu jirkii badbaado iyo maaragtay isdifaacid uu galo waayo wuxuu u arkaa waxaan banaanka ka qaylinaya ee imaaday inay yihiin wax maaragtay duulaan ah oo jirkii dhibaateyn rabo oo banaanka ka imaanayo sidaas daraaddeed difaaclayaashaadii oo dhan attentionkooda وفكسكودا وصو أرورا وعكسو أرورا وحن بنانك كيمي إنا يسكا دفاعان هذا مرك إباعتا دي جيركا هذا كده حد عيسى إلا أنو يدا ماركتي أنو كستو إباعتا كسو غاريسو ماركتي روقان بنانك وكا مغلاي بحثيا آدو فربادان باريتان آدو فربادان لسمي لغيسيغا ماركتي أو هيساها لباتو ينكا ميوزيكا قيلادا دير كإيمانا بنانك قفك أي أوكياني كرتو حتى لمشو أو ماركتي إنو كو هلاكسمو كو دينتو أيا أوغ إيمان كرتو taasoo ay tahay codkaas yacni banaanka ka imaanaya ee dhawaqa dheer ku socdo jirka dhan dhibaatada uu yacni uga imaanaysa inay tahay inuu isdifaacayo duulaankaas waxaan soo duulaamay oo maaragtay dhibaateyn rabo inuu iska difaaco sidaas hadhow waxay keenaysaa marka xaalad adag oo khatar ah inuu galo oo qofkii xataa meesha uu ku geeriyoon karo dadkaan marka usoo dheelmanaya ama habeen saqdhex meeshaan u taagnaanayo ma ogsoono jirkooda siduu ilaahay u abuuray iyo sida maaragtay uu u shaqaynayo iyo haddii qalqalkan heesahan qaylada oo qofkan uu isleeyahay armaad lacag ku heshaa oo meesha uu xajisanayo unugyada jirkaada oo dhanaa dhibaato soo gaaraysaa waayo cadaadiskii dhiigga oo dhanaa yacni iyo qulqulkii ayaa dhibaato galaya markii dhibaatadaas ay imaato hormoono jirkan maaragtay inay nastaan ama waqti yacni isu kala gooshaan loogu kala talagalay ayaa jiro habeennimo sax dhaxala maraayo oo musican aad dhegaysanaysid jirkaada inuu seexdo nastaa loogu talagalay halkaanaa taagantahay qayladan iyo dhawaqan dheer markaa dhegaysatid jirki difaacu galaa oo maaragtay unugyadii oo dhan qalqalaa soo galaya halkaas waxaa imaanaysaa marka hormoonada la yidhaaho cortisol insulin waxaasoo dhan inay high noqdaan oo jirkii ku bataan oo jirkii uu noqdo jir isbaabi'inayo oo cholesterolki uu kor u kaco oo maaragtay wallaahi qof walba hadduu ka warqabi lahaa dhibaatada kasoo gaaraysa maaragtay heesaha musica codka ziyaadad inta loo daaro haddana lala sii qaylinayo oo hadallada beenta oo waaqiciga iyo runta ka fog oo aadka uga dheer waxaa la raadinaa qof walba reerreen iyo maxaad ku faraxdaa halkaasaan aadaa waqtigaan kusoo qaadanaa waxaan rabaa inaan soo farxo waxaan rabaa maaragtay aan waqtiga isa soo dhaaftiyo walaalayaalow waqtiga waa cimrigaadane waxuu qiimo yeeshaa oo maaragtay qiimo u yeelaayo inuu waqtigaada qiimo yeesho waxay tahay sidaa adiga uga faa'iidaysatid sidaa u isticmaashid wixii aad ku isticmaashid laakiin haddii aad tiraahid waqti walba maaragtay murugada hadday i hayso heesaa isaga bi'inaa farxad haddii aan rabo heesaa maaragtay aan daaranaa intii in la eg murugada ku hayso oo runta ah heesa aad ku daminaysid hadhow waxaad noqon kartaa qof murugadii oo dhanba xataa ay ka baaba'do ilaan murugta
farxadda wax walbo dareenho jirkeena ku abuuran ilaahay aan nagu abuuray mid walba meesha ay munaasabka ku tahay oo loogu talagalay ayaana la rabaa inaa u isticmaashid laakiin yacni dada heesaha oo qof kaleento dhacdo ku dhacday ama heese beenho qayaaliyo lasoo sameeyey qaara ku ooynaayo foq gabaraa xasuustaa hadda koor maaragtay halkaanan ka salaama way i daawataa yacni heesaha hindiga iyo waxaasay ku ooyin jirta markaasaa waxaan dhihi jiri waa ooynaysaa ma fahantaa ma fahminay tiri ayaga markay ooyaana saa ula ooynayaaba hadda heese nuucaan oo kale oo la jijiidaya markii lasoo gaaro ooyintu way isoo dhaafaysaa oo ma celin karin naciimo markaasaan ku yidhi wallaahi yacni 15 sano 16 sano ka hor ayay ahayd arrintan haddaysan kasii badneen xataa maaragtay waxaan ku yidhi hadhow waxaa laga yaabaa murugo run ku heesa inaad ooyin weyside ilaan ooyintii jirka waxaa loogu talagalay meeshay munaasabka ku tahay inaad ku ooysid oo waqtigii maaragtay loo baahan yahay aad ooysid haddii ka waran yacni hindigan iyo dadaa garanaynin iyo filmo inay run yihiin inay been yihiin aad kala garanaynin aa u isticmaalaysid inay maaragtay ad adeeg oo markii run loogu baahnaa inaad ooyin weysid ma laga yaaba markaasaan ka hadli jirno yacni aan ku dhihi jiray halkaanan ka salaamaa gabadhaas marka dhibaatooyinka dhacaya waxay tahay dareemada ilaahay uu nala abuuray haddii aad maaragtay si qayaali ahoo beenbeen aaragtid 24 saac inaad u isticmaashid ama aad ku damisid ogsoonow nicmo ilaahay uu ku siiyi waaye inaad maaragtay murugootid inaad faraxdid haddii laakiin qalad aad u isticmaashid xilli la raba inaad qashuucdid oo murugtid iyo meel looga baahnaa ayaad maxaad noqonaysaa qof dhagax ah oo soo jeedo dadka heesaha dhagaysto ama heesaha murugada iyo waxaas dhagaysto xataa salaadaa ku adkaato cibaadadaa ku adkaato inuu ilaahay ay u dhowaadaan waxaa yacni ku adkaado wax walba oo wanaagsan oo farxad lahoo yacni diin ahoo lagu farxi lahaayoo dhan ama hadallo wanaagsan negativekay hadhow u bataan maxaana meeshaas ka dhalanaya marka in waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka inuu ilaahay hadhow risaaqadii kugu cariiriyo maaragtay noloshii ay kugu adkaato adigana aad is leedahay waaba maaragtay qof oo shaqaysanayo fanaan aho ama maaragtay wax qabsanooya fanaaniinta dhan fuqaro wa yacni markii aad runta u guda geshid xabadda banadoolka waa loo maaragtay qaaraama walaalayaal marka aan iska boorino oon iska dhiirigelino oon ka hortagno waxyaabaha nuucan oo kaleente hadda naagtan xalay meeshaan way ku geeriyoon laheed oo halis ay ku gashay yacni balansigii jirkeeda oo dhanaa baaba'ay jirkeedii hormoono oo waqtigii loogu talagalay aan ahayn ayaa soo daadinooyo unugyadiyaa difaaci galaya dhawaqaas la sii dheereeyey iyo musikaas la waxeeyey iyo qof kale iska dhigdhigisti taasaa ugu daran oo maaragtay xarakaadka waxa ay samaynayso naagaa waxaas samayso oo faadimiino la yidhaah taasay marka ku daysanayeen kulligoodo iyadii oo kale raba maaragtay inay iska wada dhigaan war qofka waxii xun loogama deesto yacni qofka aad ku daysanaysid wax fiican uga dayo maxaa kuu geysan kara inaad dabada xiratid oo niigsidoo maaragtay iska tuurtid qarka iska tuurtid oo biraha madaxa ku dhuftid oo darbiyada aad ka dhacdid waa run jirkiyaa maaragtay hab u shaqaynooyo eedana dadkii kale nuceertaa inay hab kale ula dhaqanta ay tusto jirkiina wuu diidan yaho cudhooya iga daa waxaan waa tii ilaahay beedkiisa aad ballanta igula soo gashay oo sababtoo ah waa nafta hadday caasi tahay organada jirkii way diidan yihiin oo siduu ilaahay u amray ay u shaqeeyaan oo kama yeelayiin inay maaragtay sida iyada rabta ay ku maamusho qof kasta oo jirkan qasbo oo wuxuu rabin ku maamulo cudurraa kusoo boodo meeqaa maaragtay kiliyaha laga dhaqaa meeqaa korka laga dhaqaa meeqaa naasaha laga gooyaa waa ka warqabtiin intay soo bannaystaan birina waxay ku leeyihiin shiikhoo ii soo daceey 2 rog ayaan rabaa masaajidka inaan ku bixiyo dhibaataa ii haysato ilmihiyaa iga hor yimid ilmo lacagtii meelaha laga shaqeeyey lagu biilaayo cunto lagu siinayo war yaaqa ilaahay ka cabsadoo shaqaysta dad waaweynaad waa shaqaysan kartiin waddamo fursado lahaa joogtiin subxaan allah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalaha janalka dhaqaaq addaxashide muuqaalkayga waxaan ugu talagalay intaas inaan kusoo gabagabeeyo dhallinyaradan la marin habaabinaayo 24 saac tiktoka taagan ee intay musikaas soo qaataan xabadka kusoo ruxaayana waalidiintii dhalay walaalayaalow intii ay wax idinka maqli karaan wax u sheega hadday idinka maqli waayaan ayagaa la kulmaaya jawaabaheedu ilaahay agtiisa uga imaanaya dobaamiin ayaa waxaa lagu raadinaa 24 saac si qaldan dobaamiinka waxaad ku raadin kartaa oo jirkaada siduu ilaahay maaragtay kuu amrayow tuko salaada tuko shaqayso dhidid iska keen jimacso carar maaragtay sadaqa baxso dadaal jirka ilaahayaa abuuray siduu u amroonu u shaqeynaa marka si qaldanaa lagu raadinaa heesahan dadka daawado wallaahi yacni daroogista wax ma dhaamaan jirkoodii intay gasho ayay maaragtay daroog ahaan ber looga saaro ma lah lacag raadis lacagay raadinayeen lacagta ay ka helaan baraka ma leh kuwa soo aruurayo meesha imaanayana waqtigoodii cimrigoodii ay iska baabi'inayeen marka waxaan leeyahay
sanadba sanadkii maaragtay dhashaba inay soomaalidii gadaal usii kurunto inay sii nisqaamaan oo isbeddel ay laheen oy dhanka xun usii badanayiin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wax kale oo la yidhaaho ma jirto waa musiibo musiibana markaa aragtid waxaa la yidhaha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxyaaba faa'iido leh qofka maaragtay heesaha fiirsado muuqaalada heesaha lasoo saaro yacni waxyaabaha murugada waxyaabaha beenabeenayda oo sidaan ku yeelay saana ku yeelay qofka daawado oo mar walba dubaamiinkiisa iyo reereentiisa iyo farxaddiisa heesahaas iyo muuqaaladaas qaldan ku raadiyo waxaa la yidhaahaa waxyaaba faa'iido leh qofkaas maba u haayo maskaxdiisa boos sababtoo kaasaa buuxiyey wax kastoo faa'iido laho maanta dhan loo sheegayo ama horumar leh ma rabo mana fiirsanayo awoodna maba lahanba inuu maaragtay 5 daqiiqo oo shiiq hadlaayo ama 5 daqiiqo qof dhiirigelin iyo faa'iido u wado ma daawan karo waa ugu badan yahay waa dheer yahay 10 daqiiqo wuu dhibsana oo faa'iido leh 1 saac oo qaylada iyo buuqan iyo balaayo igu soo boodo iga degay iga yeelay iyo waxeeyay hoteelka igeysanine qashin uu daawan karaa innaa lilaahi waa idin salaamay muuqaalkane intaas ayaan kusoo afmeeri doonaa waxaa ogaatiin qaylo kasto inay cadaabkeeda ay wadato oo maaragta jirkan haddii qaylo ziyaado ay soo gasho inaad xataa u dhiman kartid oo ilaahayna in badan uu qur'aanka kusoo celceliyo nooga digay sida aayadda hadda maaragtay aan akhrinayo nabiyullaahi shuceeb qoomkiisii maaragtay lagu halaagay intii in la eg marka heesaha inta meesha la iskugu yimaado kor loo qaado la wada qaadaayo meesha qiyaamaha uu idinku imaanin qof walbana siduu ku geeriyooda lagu soo bixiyaa ilaahay hortiisa inaad ku ceeboodidno wax yacni kaaga xalisan oo kaaga xun ma jirto oo qof walba uu qaato ma kheyr maca iimaana ilaahay laga baryaa aan ku wada ducaysano geerideennana ilaahay ma geliyo meeshaas iimeel lamid subxaan allah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun muuqaalkaygan intaasa kusoo gabagabayn doonaa waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaado qalinka kheyrka aad dhaaftida